بسم الله. halkan waxaan ku daweynaa maantay cashar ka afraad ee ku saabsan adding decimals sugeynta decimaliska marka la isu geynayo decimalka ama tobanle waa in labadan qodob ayaa muhiim ah. qodobka koowaad waxa waaye 2 tobanle waa in loo qoraa si kal ah oo macnaha joog ah. taasina waxay kuu sahlaysaa in aad isku aadiso si isku boos ay isugu aadaan tirooyinka uu numberka ama tiradu ka dhisan tahay tobanla kasta ah ama decimalka. waana arki doonaa tusaalahan ku arki doonaa inaad joog u qorto ood isku aadiso si number walba tirada laba tira isku ku jira uu ugu aado kuu leeyahay. qodobka labaad waxa waaye dhibicda ku jirta tobanlaha ama decimalka waa inay dhibicda kale ku aadaa oo labada numberba aad isku darayso hadday yihiin 2 decimal ama 2 tobanle labadaba waxaa ku jira 2 dhibcood. labada dhibcood inay isku aadiso waa haddii midkood nambaradaas uu jiro tirada uu ka kooban yahay ama tirooyinka uu ka dhisan yahay uu ka yar yahay tirooyinkan kale kaas dhiman waa inaad ku dartaa eber hadba inta loo baahan yahay. haddii hal eber loo baahan yahay hadduu midda 3 ka kooban yahay midna 2 yahay waa inaad kaamishaa oo 3 ka wada dhigtaa. haddii mid 4 yahay mid kalena 2 yahay waa inaad 2 eber ku dartaa hadba sida hadba loogu baahan yahay ayay ku xiranta. waxaanu ku arki doonaa tusaalayaasha. labada qodob ayaa muhiima marka tobanlaha la sameynayo. tusaalaheena koowaad oo hadda aan halkan ku dhigayno waxa weeye waxaan isku daraynaa labadan number oo ah midka koowaad 4.3 waxaan ku daraynaa 2 waxaan ku sii daraynaa eber dhibic 79. hadda waxaan isku daraynaa waa 3 number. waxaa inoo muuqda marka 3dan number inaynu saan u dhisi lahayn marka aan fiirino marka dhibicda midka koowaad ee 4.3 dhibicda waxaa midka xiga hal labadana dhibicda ma wadato waaba 2 caadi ah. midka saddexaadna waa eber dhibic 79 oo 2 number baa dhibicda midka xigta. marka maxaa muhiim ah marka hore inaynu dhisno taxi. marka waxaan dhehaysaynaa si taxa si kal ah baan u dhisaynaa oo jooga yaana dhihin taxi waa kal. waxaan dhehaysanaa 4.3 waa isugeen waxaan samaynaynaa kulligeen waxaan ku qoraynaa kan 4tu waa number buuxa 3duse waa tobanle ama waa decimal. labada waxay ku hagaagaysaa labada kale laakiin dhibic ma wato marka inaan dhibic raacin karnaa. numberka ugu dambeeya waxaa ugu horeeya eber oo kuma jiro number buuxa waxaana kasii dambeysa 2 number oo ah midna 7 midna 9. sidaasi hadda waxaan samaynay dhibcihii waan isku aadinay wixii dhibicda bidix ku xigana waa isku aadinay wixii dhibicda xagga ka xigana waan qornay. waxaa inoo harsan qodobkaasi waxaan goonnay ama aan samaynay inaan si kala u qornay. hadda waxaanu samaynaynaa oo aan rabnaa inaynu dhisno nambaradeennu ma kaamil ba
kow midka koowaad wuxuu wataa dhibicda hal, kan labaadna oo labada ah ma wata, kan saddexaadna laba wata. marka kan labada wata dhibicdu midigta ka xiga laba number baa ugu weyn, marka kulligood waa inaan laba ka dhignaa. marka afartii waxay noqonaysaa booskii kaa koowaad wuxuu noqonaya 4 dhibic sugeentaasaan hilmaamay. marka isuma geynayno, marka hore waa dhisaynaa. waxaan leenaha 3 eber baan ku darsanaynaa, waa 2. labadii baan soo qoraynaa iyadana, waxaan leenaha 2 eber baan raacinaynaa. kan waa midka ugu weyn oo dhibicda waxaa ka xiga 2 number, asaga waa noo kaamilay. markaasaan isku daraynaa. waxaan ka soo hadalnay 2 qodob. labada qodob ayaan ka soo hadalnay ujeeddadoodu waa tusaalaha kan, oo mid muxuu ahaa u qor si kal ah, jooga u qor. qodobka labaad muxuu ahaa isku aadi dhibcaha. haddii nambarada markaad isku aadiso qaarkood uu kaaga soo baxo in dhibicda waxa midigta ka xiga ay nusqaani ku jirto nambarada, eber ku dhammaystir. waan samayn. marka hadda waxaan isku daraynaa eber lagu daray eber lagu daray 9 waa 9 halkaas. waxba ma wadano. marka 3 lagu daray eber waa 3, 7 ku dar waa 10, eber baan dhiganaynaa. xabadaan wadana. xabadii waxaan ku daraynaa halka kan. marka waxaan haysanaa 4 lagu daray 2 lagu daray eber waa 6. xabadaas soo aan wadano ku darso waa muxuu ahaa 7. laakiin waxaa ka horeysa markaas inaan dhibicdii qorno intaana 7 qoran. markaas dhibicdu booskaasay gelaysaa isugeynta marka laga hadlayo. waxaa noo soo haray 7 inaan qorno. 4 marka maxaan sameeyaan ku celiyo. waxaan nidhi eber lagu daray eber lagu daray 9 waa 9. 3 lagu daray eber lagu daray 7 waa 10. xabad baan wataa eber baan qortay. dhibicdii waa soo dejinay meeshaasaan ku qorayaa. xabadaydina waan qaatay. xabadii waxaan isku daray 4 iyo 2dii waxaa soo baxay 7. final answerkayga halkaas iigu dhigay. way sahlan tahay oo ma adka xisaabtan marka aad fiirisid. waana aad iyo aad bayna u fududahay. marka hadda haddaad aragtid tusaalaha hadda hawshan ku qoran ma ahan wax adag. maalan hadda haddaan number 9 oo kale ka shaqeeyo. number 9 muxuu isiiye waa kow. qodobkii koowaad waa ii hagaagsan yahay oo maxaa weeye waxay ugu qoran tahay si kala oo jooga. waxaan haystaa eber 6 iyo 6 iyo 3. nambarkayga nambarka xiga waa 48. 48du waxay ku aadaysaa 8du waa booski waxay ku jirtaa oneska. 4tuna waxay ku jirtaa booski tenska ama 10. dhibicduna halkaasay taale. meeqa eber baan raacinayaa 3 eber. markaas inaan kaamilo waa. maxaa ii xiga. waxaa ii xiga eber dhibic 4 3. maxaa iga dhiman xabad eberaan ku darsanaya. maxaa ii xiga 37 dhibic. look 3 iyo 4 waa isku aadeen. 7 iyo eberka 8 waa isku aadeen. markaas maxay ku joogaan booska onesay ku joogaan. place valuegi baa muhiim ah marka qofka inuu xasuusan yahay. maxaan raacinayaa 3 eber baan raacinaya inaan kaamilo waa. markaasaan isku darayaa. haddaa isu geynaya 3 eber ku dar eber ku dar eber waa 3. 6 lagu daray eber 3 lagu daray eber lagu daray waa 9. 6 lagu daray eber lagu daray 4 lagu daray waa 10. eber qoro dhibicda dejiso xabadiina qaado. groupkan oneska ku dar. waxaan haystaa 1 lagu daray eber lagu daray 8 lagu daray eber waa 9. 9 ku dar 7 waa 6. 6da qoro xabadana qaado. xabaddu waxay aadaysaa 10 layaasha. waxaan isku darayaa marka xabadii 4 iyo 3 waa 8. saasaa nambarkayga iiga dhayaa marka. casharkan marka labadaa qodob in la fahmo oo lagu socdo ayaa muhiim.
waxaan u gudbaynaa tusaalaha buugga xiga. halkaa marka waxaa kuu yaala su-aalihii hadda aan ka shaqaynaynay weye oo waxaan u malaynayaa inaynan ka duwaneen. waxaa keliya oo hadda aan fiirinaynaa exercise b-ga muxuuna dhahayaa. wuxuuna leeyahay write this addition problems in vertical form then add them. u qor isugeyntan su-aalaha ah si kal ah oo taagan kadibna isugee. marka laba shaqaa lagu dira halkan. kow inaad u qorto si joog ah, kabacdina inaad u qorto isugeysaa laga rabo. waa su-aashaas aan samaynato number 7. marka number 7 maxaa nala siiyey? waxaa nala siiyey 5.1 lagu daray eber dhibic 12 lagu daray eber dhibic 53 lagu daray eber 1 eber 1 6. waxaa la ii dira su-aasha marka ugu horeeyo u qor kal. sidii hore uun sameynaya waxaan qorayaa 5 iyo 1. okay, waxaan ku xijinayaa eber 1 2. waxaan ku xijinayaa eber dhibic 53. waxaan ku xijinayaa eber dhibic 1 6. kee ugu badan oo haysta nambarada uga badan u kala joogan? waa kan ugu hooseeya oo 3 dhibicda ay ka xigto. waxaan rabaa marka inaan isu geeyo asaga. marka kulligood marka hadda waxaan samaynayaa in aan kaamilo. waxay noqonaysaa 5.1 eber ku dar eber dhibic 1 eber ku dar eber dhibic 5 3 eber ku dar. kan ugu hooseeya waa uu asagu ayaa ahba midka wax lagu dhisay. markaasaan isu geynaya. waxaa haystaa eber lagu daray eber lagu daray eber lagu daray 6 waa 6. 2 ku dar 3 ku dar 1 waa 6. 1 ku dar 1 5 ku dar waa 7 1 ku dar waa 8 dhibicda qoro. muhiimadda dhibicdaas waa intaan markaan 5 ku dar eber ku dar eber ku dar eberna waa 5. jawaabta halkaas iga egta. qaabkaas aan u dhisayo waa labadii shardi ee aniga la iga rabay aan dhiso. mid walba aan dib u dhiso. su-aalaha kale sida exercise c oo kale kana waa hadda aan samaynayna waa exercise b waay. kan hadda inta ku samaynayna waa exercise c. exercise c muxuuna leeyahay? find the sum. waxaana la yidhi find the sum. sum maxaa taa marka? sum waxa waaye addition waay adding. hel wadarta. maxaana haystaa marka? nambaradaana la siiyey calaamadna layma siin. kuwii hore ogaada calaamadaa lagu siinay. kuwana waa bilaa calaamad. waxaa lagaa rabaa inaad luuqad ahaan u fahanto. maxaa la yidhi marka number 1 oo kale? waxaa la yidhi waxaa lagu siiyey 2.5 6.25 8.31 iyo 6. waxaa la siiyey 2.5 6.25 8.31 iyo 6 baa la siiyey. marka waa inaan sidii kalka u qoraa. kalkii inaan u qoro waa
oo maxaan samaynayaa 2.5 6.25 8.31 iyo 6 oo dhibic wadan intaasaa la yiri isu gee waan isu geenayaa marka nambarka ugu badan waxaa dhibicda midigta ka xiga 2 nambar okay marka waxay noqonaysaa 2.5 waxay noqonaysaa 2.5 eber hal eber baan raacinayaa 6.25 asaga waxba kuma darayo 8.3 waxba kuma darayo 6.2 eber baan ku darayaa waan isu geenayaa marka haddaan isu geeyo eber 5 hal 6 waa eber 5 hal eber waa 6 2 5 3 eber markaan ku darana waa 10 dhibicdaan qoranayaa xabadna waa sitaa meeshaas waa muhiim waxaan isku darayaa halkii aan sitay iyo 2dii iyo 6dii waa 8 baan ku darayaa 9 markaan 8 ku daro waa 17 markaan ku daro 6 waa 3 saasaan usoo qoranaya waa dhantahay marka jawaabta intaas ku egta tusaalayaasha kale waa sidoo kale word problemku laftigiisu ma adka waa isu geen waa waxaan dhan aan ka shaqaynayno fahm bay idinka rabtaa word problemkan waa solve these addition problems waad isu geenaysaa nambaradaas haddana kuma arko wax culus cashirka halkaasuu inoogu ogyahay waxaan idinka rajeynayaa inaad problemadaas cashirkan uu fudud yahay cashirka waxigana uu fudud yahay marka inaad kasoo wada shaqaysaan halkaasaan ku joojinana cashirka